xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa mugdi galay kadib markii Kenya kala baxday Muqdisho danjiraheedii u joogay Soomaaliya Lukustambo. sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa ku amartay danjiraha Soomaaliya ee Nairobi Maxamuud Axmed Nuur Tarsan inuu ku laabto Muqdisho. Kenya ayaa ku eedeysay Soomaaliya inay 7 bishan ku xaraashtay London qayb dhulkeeda ka mid ah oo ku yaala xuduudka labada wadan. hadal uu jeediyay agaasimaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayuu ku sheegay in tallaabada ay qaaday Soomaaliya ay tahay mid sharci darro ah oo lagu qaadanayo kheyraadka Kenya. tallaabada ay qaaday Kenya waxaa ka dhalanaya 3 su'aalood oo u baahan jawaabo nadiif ah. dowladda Soomaaliya waxay u sheegtay shacabkeeda in shirka London lagu soo bandhigay xog laga aruuriyay goobaha shidaalka lagu tuhmayo ee ku yaala Soomaaliya. ma jirin wax xaraash ah oo ay dowladda Soomaaliya faafisay, sidaa darteed isticmaalka ereyga xaraash wuxuu Kenya uga baahan yahay caddayn. waxaa jira dhulbadeed ay ku muransan yihiin labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya. sida lagu faafiyay xogta shirkii London, goobaha laga sameeyay sahanka shidaalka kuma jirin aagga ay ku muransan yihiin labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya. arrintan waxay Kenya uga baahan tahay tafaasiil caddeyn wadata si loo fahmo goobta ay ku doodayso in Soomaaliya ay xaraashayso. waxaa jira warar hoose oo tibaaxaya in Kenya aanay ku faraxsanayn isbahaysiga cusub ee Ethiopia, Soomaaliya iyo Eritrea. taasina ay keentay in Kenya ay dagaal qabow oo siyaasadeed ku bilowdo Soomaaliya. madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo dowladdiisu marna sooma dhaweynin isfahamka cusub ee 3daas dowladood. Soomaaliya waa dalka ugu dhow ee Uhuru qashashaadi karo si uu u fashiliyo isgaashaanburaysiga Ethiopia, Soomaaliya iyo Eritrea. Kenya waxay ka mid tahay dhowr wadan oo Afrikaan ah oo ay ciidamo ka joogaan Soomaaliya. maxay kula tahay adiga?